maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku dhawaaqay in al-shabaab dagaal ka dhacay deegaanka Ceel Qooxle oo hoostaga degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan looga dilay sargaal sare oo magaciisa maamulka ay ku sheegeen qoorgaabkaas oo kamid ahaa raggii ay dowladda Mareykanka madaxooda dul dhigtay lacag aad u fara badan isla markaana la baadigoobay warkan waxa warbaahinta u xaqiijiyay afayeenka maamulka gobolka Hiiraan mudane Liibaan Cabdi Cumar oo warbaahinta kula hadlay furinta dagaalka deegaanka Ceel Qooxle waxa uu afayeenka intaas ku daray in ciidanka deegaanka iyo kuwa dowladda ay ku sugan yihiin deegaanka Ceel Qooxle oo gacanta xilligan ay ku hayaan shabaab ayuu sheegay in dagaalkii dhacay looga dilay ku dhawaad ilaa 100 dagaalyahan oo ay ku jiraan saraakiil sarsare bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah guud ahaan shacabka reer Hiiraan sida la socotaan iyo ummadda Soomaaliyeedba shalayto deegaanka Ceel Qooxle waxa ka dhacay dagaal xoogan oo nimankii mujrimiinta ay isku dayeen in weerar naflacaarnimo ah oo fuliynimo ay ku soo qaadeen halyeeyada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka is abaabulay ee qorigooda qaatay xaqiiqatan dagaalkaasi waxa lagu dilay in ka badan 82 dhagar qabe oo ka tirsan al-shabaab waxa cajiib ah oo howlgalkaasi lagu dilay horjoogihii ugu sareeyay argagixisada al-shabaab oo magaciisa lagu sheegay qoorgaab iyo waliba niman badan oo ajaanib oo cadaan ah kulaytaba ma garanay waxa dhulka Hiiraan iyo cariga Hiiraan ka soo jiray in howlgalkaasi lagu dilay dowladda Mareykanka waxay horjoogaasi hore u dul saartay lacag dhan 3 milyan oo dollar waxaana lagu soo afjaray oo lagu dilay howlgalkii shalay ka dhacay deegaanka Ceel Qooxle waana tilmaam muujinayso in halyeeyada reer Hiiraan iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed cadowga markii ay farasaaraan midba midka ugu qiimaha badan dhankooda ay ka dilayaan ilaahay dagaalkaasi waa uu nagu guuleeyay howlgalkaasina uu ahaa howlgal xaq ah oo shuhadadii ku shiidana ilaahay u naxariisto maamul gobolka Hiiraan wuxuu u tacsiyeenayaa ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii ay ka baxay Allah u naxariistay nabadoon cilmi hagar guure iyo halyeeyadii kale ee la shiiday dagaalkii shalay waa uu guuleystay cadowguna 10 aad u weyn ayaa halkaas loogu dhigay ma filayo mana u maleynayo mana rajeynayo in mar dambe al-shabaab duulaan ay ku soo qaadi doonaan dhulka Hiiraan 10 u noqon doonto wixii shalay ku qabsaday Ceel Qooxle iyo meelo badan hadda kadib waxay tagaysaa in xuduudaha ay al-shabaab ay ka soo talaabayaan ee walaalaha kale ee diriskeen ay joogan haddii cadowga ayaga iska dul qaadi waayaan ama aan ka xureen ama xogtooda ana siiyaan ama iska xurayaan wax saddexdaas sifa ka dhaxayso oo hadda kadib ay lagu jiri doona habeeraate male waxaanu ka tilaabi doonaa xuduud walba meel walba al-shabaab joogana ciidanka dawladda iyo maamulka gobolka Hiiraan istiraatiijiyad u dan waxa ay tahay in looga talaabo oo lagu soo afjaro man is huri doono waxa kale oo intaas dheer in deegaankii Ceel Qooxle iyo deegaanada kale ee ku teedsan ee imika gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada dib u xoreynta deegaanada gobolka Hiiraan dhammaan waa meelo safe ah oo ka caagan argagixisada waxaana ka socda adeegii dawladnimada waana la guuleysanayaa ilaahay idinkiis waa mahadsantiin wabillahi tawfiiq baad saxaafada gurmadkii ugu xooganaa ayaa soo gaaray deegaanka Ceel Qooxle oo shalay dagaal culus oo ku dhaxmaray al-shabaab oo dhinac ah ciidanka dib u xoreynta deegaanka oo garabsanaya ciidanka qalabka sida qeybahooda kala gedisan waxaana hadda degan xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay iyadoo boqolaal ka mid ah ciidanka macawisleyda haatan ay baadikoob ugu jiraan dagaalamayaashii shabaab ee shalay weerarka ku soo qaaday deegaanka Ceel Qooxle laga daayo istibadnimada iyo istustuska iyo ujeedada xunta oo qarmoonka ha laga daayo inaan mar dambe ugu sabrin igu wallaahiya oo igu billaahiya igu tallaahi بأي سبب أدونك نف إيا مال باو غاليس صوما لبضا بوي قال الماشن صوما أدي ساك عد مهد علين مضاني أي جيتو وحا مضان جنرال بيحي وحا مضان جنرال ذواء وحا مضان تاليس كحوق دلك الصوماليين أدين كان إيه مرقاتي فرية بلكي هو سوقنا سوما يا على جيتي ورشد ما ميلو طالع ما جنرال أدو كوكيل التلس كحوق دلك سومي وشهردك عشان رجع وكو ما دعلنا هدان هاي غير هيدا كامركا انت uga gudbo waxba naga qaldamay wixii naga qaldamayna saxanaan rabaa
waxaa kaloo rabaa inaan ka hadlo dadka brobagandada iyo sheekada ujeedda cuntaa la dhex taagan ciidanka. anugu hadda hebel ma lihi, laakiin wallaahi billaahi tallaahi waa aniga dhaartay inaanan u sabrayn, inaanan mar dambe ugu sabrayn. igu wallaahiya oo igu billaahiya igu tallaahi biayi sabab adduunka naf iyo maal baa u qaalisan soo ma, labadaba way galeen meeshan soo ma. wiilal gadgaduudan baan sida xaskushil gudadgelina soomahay yaa kuwaanu naftisay u noolaayeen horu laanaa soo ma. hadda cid kasta oo in cadowga lala dagaalamo, cid kasta oo cadowga in lala dagaalamo ka hor timaadda maxaan u aqoonsannahay? al-shabaabaan u aqoonsannahay. ha laga daayo istibidnimada iyo istustuska iyo ujeeddada xunta oo qarmoonka ha laga daayo. horay iyo gadaal horay baa loo dhow. wixii dhiman rabana way dhinteen, inta hadhayna ciddii malaka mawtuudgana waa dhimanaysaa. laakiin ma dhacayso nimaan wakhti gelin anoo og waxaad u adkaysateen inaan dad badan uusan u adkaysan karin, anoo og duruufta aad ku shaqaynaysaan, anoo og sida wax yihiin. wax noo bedeli kara ma hayno maanta waxaan ku jiro. wax inaan xiniyaheen ilaahayna tala saarano, qorigaa caaradiisana nimankaan isaga fogeyno, wax aan ahayno antaratiib kale oo maanta noo furan ma jiro. haddii shalay cali jeyto keligii kutorbaan ahaa, maanta gabdhaha baadiyaha jooxta soo kutorbaan maa, soo shabaab kutorbaan kama, cid kale dimi kama gelin. yaa walaa dhulka ma ilaashanaysaan? dhulka ma ilaashanaa dhulka